saacaddu waa 4tii habeenimo. waxaa ii soo dhacay mesaj iga yimid qof ka mid ah asxaabtayda aan aqaano, waxayna ahayd gabar, laakiin halkani magaceeda kuma xusi doono, balse waxaan idinla wadaagayaa qoraal ay ii soo dirtay. wuxuuna ku bilaabanayaa sida tan: waxa aan dareemayaa qalbijab, waxa ay dhegahaygu maqleen hadal aan ka filanaynin dadka qofkii igu dhowaa oo aan weheshan jiray, naftaydu ku xasili jirtay, jacayl darannaan u qabay, balse caawa qalbigayga waxaa dhaawacay hadallo aanan marnaba ka filanaynin. waxaan ahay qof qalbi jabsan. hadalladani aadka u xanuunka badan bay ii soo qortay, waxayna iga codsatay inaan la talin u sameeyo. ka aniga ahaan markaan aqriyay dareenkayga wuu bedelmay. waxaan isweydiiyey, maxaan qofka xidhiidhka inaga dhexeeya aan uga filannaa hal dhinac oo wanaag ah? maxay tahay sababta hadallada aan ka fiirsiga lahayn inagu dhahaan annagana aan u dareennaa qalbijab? qalbigeena ma waxa uu ku xidhan yahay hadallada ay nagu dhahayaan? haddaba su-aalaha weydiimahani aan isweydiiyey kadib waxaan ugu jawaabay sida tan: dadka oo idil waa bini'aadam. qofka xidhiidhka jecel idinka dhexeeya ma ogaan kartid waxa saxda ay qalbigiisa ku jira. wuu dareen jili karaa, adigana dhab ayaad u qaadan kartaa, laakiin qofka marba marka ka dambaysa u dabacsanaanayo waa adiga. inta aadan u dabacsanaanin qofka xidhiidhka idinka dhexeeyo, filo in wax kasta uu kugu dhihi karo. marnaha isdhihin ima dhahayo, waayo kama warhaysid qalbigiisa waxa ku jira. madabin jacayl buu kuu dhigayaa mise dhab bay ka tahay? marna ma ogaan kartid. laakiin waxa aad samayn kartaa inaad u diyaargarowdo wax kasta lagugu dhihi karo, taasoo kuu fududaynaysa in haddii hadal meelka dhaca oo ku xanuujiyo kugu dhaho, ay naftaada u diyaargaraysan tahay inay aqbasho iyadoo aanan xanuun ku dareemaynin, waayo waad filanaysay. waxaad haysataa filasho kaa reebi karta inaad qalbi jabto. midna ha samaynin, filashadaada ha xadidin. qof kasta oo aad xiriir jacayl la samaynayso, wanaag iyo xumaanba ka filo. si kasta oo aad qofkaaad u jeceshahay filashadaada ha kula jirto. badankeena naftana innaga ayaa dhaawac u geysannaa, waayo waxaan xadidnaa filashooyinkeena, kadib baan qalbi jabnaa.